فرحسناhay in adigoo ku maqnaa safar shaqo in la hay soo celiyay nabadgelyo waxaan ku bushaareynaa dalkii aad shaqada ugu maqnayd oo Ilaahay ku soo celiyay nabadgelyo ayaad ugu soo noqotay waxaad ugu soo noqotay iyadoo ay bedelan tahay waqtiga aad ka tagtay iyo waqtiga aad timi oo Ilaahay raxmaad iyo roob noo keenay oo runtii inkastoo nimco waliba nuqsaan leh inkastoo waxyeelooyin ay jireen dhimasho way jirtay xoolo waa jireen socodkii oo xanibnaa ayaa maxanibnay way jireen waxaanu tacsi u diraynaa ciddii ku waxyeelowday Ilaahay naxariista janno ha siiyo socodka buundooyinka dhibaatada ugu weyn waxay ahayd buundooyinka oo go'ay dariiqa dheer oo socodkii uu ayaa maxanimay waxaan ugu mahadcelinayaa shacabka reer Puntland iyo oo ka kooban ay ka mid yihiin shirkadaha private-ka shacabka guud ahaan golayaasha dawladda especially guddidii loo xil saaray hawlaha iyaga sida ay uga soo baxeen oo shaqada wanaagsan uga qabteen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa waxaanu isxilqaan lagu ogaa Puntland waxa aanu ku dhameynay ballan qaadnay 24 saacadood inaan maxay ahayd hawsha lagu dhameeyo waana la fuliyay waxaasi waxay ahayd dig joojin waa kugu simeynay waa hawl especially wadooyinku waa hawl aad u baaxad weyn طبعا ilaahayna waa la kaashanaynaa inana mas'uuliyadeeda waa qaadaynaa hadii alla yiri nabadgelyo ayaad ugu soo noqotay wax dhibaato ah ma jiraan maanta aad iyo aad baan Puntland ay meel wanaagsan u maraysaa nabadgelyadu waa fiican tahay madaxweyne waa ku faraxsanahay in Ilaahay ku soo nabad celiyay oo aad nabad noogu timi ku soo dhawow waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dhammaan soo dhaweyntii diiranayd iyo sida wanaagsan oo sharafta leh aan ugu soo dhaweyseen waxaan Ilaahay sidoo kale uga mahadcelinayaa raxmadda iyo nabadgelyada Ilaahay uu ku munaystay deegaanada Puntland iyo deegaanada kale Soomaaliyeedba waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inuu intaa u sii horumariyo dalka quruxdiisa waa roob markaan soo degaynaa sababna ka degaynaa moodayo dhulka sidoo green u yahay iyo biyaha meelaha yaala marka Ilaahay inuu sidaan noogu hayo aafada ay wataana awal waan laga diyaar garoobin dadka diyaar garoona aan noqono oo buundooyinka ay hawlahaasi hagaajino dabcan warku waa soo kay dameynaa safar dheer oo China iyo Imaaraadka iyo Ethiopia isku soo maray waxyaabo badan oo runtii aan rajaynayo in horumarka dalka ay qayb ka qaadan doonto badan ayaan ka soo wada hadalnay warbixin ballaaran ayaan insha Allah la wadaagi doonaa dawladda iyo shacabkaba waxyaabo badan oo runtii aan yiddiilana way ii muuqataa waxaan rajaynaynaa ilaa idankiis Ethiopian Airlines inay waqti aan fogeyn meelaha Puntland ciladaha ka haysteen waxaa ka mid ahaa dhinacyada isu socodka ama badda ama cirka ama dhulka dekedeena waa ogtihiin culaysyada ka jira jidkii wada aragtaan oo 40 sano kadib waa sii burbur safarada dibka dadka qabsada waad ogtihiin oo ruudadka international oo isku xiran aad bay ugu liitay waxyaabaha runtii xukuumad ahaan aan xoog saareen waxa ka mid ah in dalku uu
annaguna aan u furnaan adduunkuna noo furnaado si maalgelin nolosha bini'aadanka wax ka beddesha loo helo insha allah ballanqaadiyo jidka meelihii wax ka gaareen si degdeg wax uga qabsoomi doonaanna waan rajaynaynaa insha allah goordhow waxyaabahaas oo dhan waqti ku habboon ayaan ka warbixin doonnaa haddii ilaahayna aad baan iniga mahadcelinayaa soo dhoweynta maalin jimcaha oo nasasho ahayd insha allah intaas ayaan kusoo kala gabayn doonaa haddii ilaahayno